maanta waxaan ka hadlaynaa oo casharkeenu ku saabsan yahay waxaynu ugu yeedhno qodobada Soomaaliga marka af la baranayo afka laftigiisa waa la qodobaya waxaana raaca wax la yiraahdo qodobadaasoo muxuu ahaayay raaca ama magacyada mostly inta badan ama muxuu ahaayay sifooyinka raaca ama raaca maxaan ku raay falkaabyada raaca ama muxuu ahaayay maxaan ku dhahday ficilada raaca marka luqadda Ingiriisigu waxay leedahay wax la yiraahdo articles kaasina waxay sameeyaan aqoonsi lagu aqoonsanayo shaygi waxa uu yahay oo ah inuu kali yahay iyo inuu maxaan ku dhahday jamac yahay inuu mid muxuu ahaayay carifan yahay iyo inuu yahay mid aan carifnayn markaan tusaale idin siiyo badanaaba qodobada la isticmaalo af Ingiriisiga waxa kamid ah a oo kale sida a boy, a book, a table, a carton, an umbrella. waxa kaloo kamid ah an sidaan hadda macnaha ugu soo daray an umbrella oo kale an apple oo kale an hour oo kale erayada noocaas oo kale ah waxa la yiraahdaa waa magacyo sida aan cashar hore oo aan magaranaysa magacyada kaga hadlay aan ku idhina waxaan idin magacyadu waa barbilowga luqadda oo ay ka bilaabaan ifan caruurtu markay hadaaqayaan waxay ku bilaabaan luqadda magacyada sida daddy, mommy, maxaan ku dhahay wixii la mid ah marka qofku inta aanu baran dhaqanka iyo dabeecadda ku hareeraysan intaan wax kale ka baran waxa uu bartaa magacyadooda magacyadaas waxay leeyihiin wax la yiraahdo sifooyin bay leeyihiin waxay leeyihiin wax lagu muxuu ahaay kala saaray leeyihiin lagu garto waxay leeyihiin qodobo lagu qodobeeyo lagu kala saaro iyaga laftigooda inay jamac yihiin iyo inay kali yihiin ama inay yihiin singular iyo plural inay yihiin kuwa muxuu ahaayay sifaysan oo xaqiiq ku cad iyo kuwa aan sifaysnayn oo ma garanaysaa de muxuu ahaayay aan dadka kale laga soo saari karin sidaan haddaba idin sheegay waxaan idin a boy waa inan kasta ama wiil kasta oo magaca wata a boy ayaa la oran karaa a woman haweeney kasto magaca wadata la oran karaa a teacher macallin kasto magaca wata la oran karaa muxuu ahaayay laakiin haddaad tiraahdid the teacher wuxuu noqonayaa magac khaas ah oo maxaan ku dhahday muxuu ahaayay sifaysan buu noqonayaa waxaana lagu magacaabaa af Ingiriisiga definite nouns waayo hadduu definite noun-ka ama magaca khaaska ah oo sifaysan definite article ka horeeyo waa wax la yaqaan wey sidaa daraadeed waxaynu nidhi maanta waxaynu ka hadlaynaa saddex shay oo ah qodobada af Ingiriisiga kuwa ugu hooseeya ee aas-aasiga ah ama waxyaabaha lagu magacaabo beginnerska oo ah an iyo the sometimes waxaynu isticmaalaa some oo kale waxaynu kaloo isticmaalaa waxyaaba noocaas oo kale sida few oo kale oo iyagu iyaga oo ah tiro ama adjective ah u noqon ka sifo ah u noqon kara muxuu ahaayay hotel marka hotel wuxuu ka bilowdaa h tan waa lagu dhawaaqaya marka wixii ka bilowda magacyada hadiya jeer wixii ka bilowda shibane ka bilowda oo shibanaha lagu dhawaaqayo baa laga hormarinaya oo macnaha muxuu ahaayay article-ka ama qodobka laga hormarinayo wuxuu noqonayaa buu noqonayaa waxaynu nidhi article-lada iyo an waxa weeye waa kuwa aan sifaysnayn oo carifnayn oo aynu nidhi a house dee guri kastuu noqon karaa magaca qaadan kara laakiin haddaynu nidhaahno
the house waxaan odhanaynaa waa mid carifan oo la soo sheegay ma qofka aad hadlaysaa kula yaqaano marka sidaa awgeed waxa looga dhigay definite looga article ama mid carifan macnaha waxa weyn isticmaala magac hadaan la tirin karin de an ma noqon karo an waa one eena waa one magac hadaan la tirin karin de an ma noqon karo an waa one eena waa one macnaheedu marka wixii aan mid ahayn oo aan midnimo loo aqoonsanayn ama wax kaliya loo aqoonsanayn loo isticmaali maayo an iyo tona loo isticmaali maayo laakiin macnaha maxaan ku dhahday kala loo isticmaalaya oo luqadda kamida deedna waxa la yidhi in a dog and animal are singular count nouns dog marka aan example-ki ugu horeeyay eegno kelmadda dog waa count noun macnaha waxa weeyaan waa magac laakiin waxa weeyaan a dog an animal na waa maxay a dog is an badanaysa marka a dog hadda aad carifaysid ama aad doonaysid inaad ma garanaysaa a dog specify garaysid waxaad oranaysaa a dog eegu marka a kastuu noqon karaa is an animal de an baad raacinaysaa animalka waxay ka bilaabataa vowel bay ka bilaabataa vowel lagu dhawaaqaya marka waxaad hor dhigaysaa an baad hor dhigaysaa marka waxaad leedahay a dog is an animal tusaale markaan kaaga soo qaado sentence-ka aan kula tago sabuuradda si aan maaragtay aad u fahanto waxa aynu ka hadlayno marka waxaynu soo qaadanay example-ka ah a dog marka a dog is macnaheedu waxa weeyaan halkan one e waxay u dhigan tahay one dog hal ay bay u dhigan tahay is waa kelmaddanina waxay u dhigan tahay macnaha waxa weeyaan waa ahaanshihii weeye uu eygaasi muxuu ahaa eygu muxuu yahay ma diyaarad baa eygu maya ma libaax baa maya maxaan ku dhahday ma bisad baa maya ma shimbir baa maya waa maxay an animal weeye waxa weeyaan xayawaan weeye marka waxaynu leenahay kelmadda animal waxay ka bilaabataa waxa weeyaan waa vowel weeye vowel marka waxay ku dhawaaqaya marka ereyga magaca ee vowelka lagu dhawaaqayo had iyo jeer waxaynu hor dhignaa haddii uu keliya yahay an baynu hor dhignaa antaasina maxay la mid tahay sida eedoo kale waxay la mid tahay one marka waa maxay waa one animal eygu macnaha one dog is one animal oo kale weeye eyga keligiisii waa hal xayawaan wey marka macnaheedu dee micna inoo samaynaysaa waxa weeyaan dog sida aynu isticmaalay a dog waxa weeyaan one and is waa and one animal waa hal xayawaan weeye eygu marka sidaasay tusaalaha kale markaan soo qaado magacaas waa count noun waa magac la tirin karo weeye waa xayawaan hal xayawaan weeye count marka xayawaanka laftigiisu waa mid aynu tirin karno eyguna waa mid aynu tirin karno waa count noun waa magac la tirin karo weeye right marka aynu qaadano waxaynu leenahay use wuxuu aynu nidhaahno sida uu buugu leeyahay for example oo aynu maxaa garanaysaa isticmaalayno tusaalaheena wuxuu leeyahay use an in front of the words that begin with the vowels a e I and o like tusaale ahaan aan kaaga soo qaado waxaa ka mid a tusaalaha aan halka kuu siinayo an apartment macnaha waxa weeyaan guri apartmentia maxaynu isticmaalay an baynu isticmaalay waxaynu kala odhan karnaa in here an elephant waxaynu isticmaalaynaa an markaasaynu waxaynu odhanaynaa elephant okay iyadana waxaynu nidhi maroodi waa hal maroodi iyo hal apartment iyo hal xayawaan waxaynu kaloo isticmaalay an idea hal fikrad ayaynu isticmaalay an idea de ideada laftigeedu waa wax la tirin karo oo hadday mid keliya tahay waa mid hal idea weeye waxaynu kaloo isticmaalnay an ocean waa hal bad oo ma garanaysaa waa mid aynu tirin karno oo hal bad ah marka maxaynu isticmaalnay an ayaynu isticmaalnay halka kana marka waxaynu nidhi in example-kee hore aynu bixinay in C notice and is used because the adjective old
begins with a vowel and comes in front of a singular noun or a count noun, which is man. tusaalihii aynu markii hore ka hadalnay oo ahaa old, kelmadda old waxa weeyaan waa sifo wey. waxaynu nidhi kelmaddani waa sifo, sifadaasina waxay sifaynaysaa man oo ah magac. marka old waxay ka bilaabataa vowel bay ka bilaabataa, which is vowelkaasoo ah o. marka vowelkaasi had iyo jeer kelmadda vowelka ka bilaabata waxaynu hordhigaynaa an baynu hordhigaynaa. dee kelmadday sifaynaysaa magaca, saasaynu u hordhigaynaa an, oo waxaynu odhanaynaa an old man, ma garanaysaa? ama waxaynu odhanaynaa muxuu ahaatay an active man, an active. kelmadda active iyana waa adjective wey, waa sifo. sifadaasi waxay sifaynaysaa man, ma garanaysaa? an active man. marka kelmadda tan waxaynu isticmaalnay waayo sifada tan ka horeysa man ayaa waxay already wadataa vowel. marka vowelkaasina iyadoo sifaa waxay sifaynaysaa magaca. marka wixii magaca muxuu ahaayay count nounska ah horgalaana waxay noqonayaan maxay? de qodob bay noqonayaan. qodobkaasina muxuu noqonayaa? micnaha unspecified muxuu ahaayay article oo an ah, waxay midaan sifaysnayn buu noqonaya, oo ah an active man, nin active ah. oo de imsa nin oo active ah jirta, mid khaasa maaha, waa mid micnaha mid kasta oo active ah, ma garanaysaa? ayaa laga hadlaya. and next part waxaynu nidhi use an if the word that begins with you has a vowel sound. like example, tusaale markaan ka soo qaadano an uncle and ankle waa adeer. an ugly picture, for example, waxaynu nidhi an uncle adeer weeye. an uncle adeer micnaha nin adeera. an ugly picture, an ugly ayaynu odhanaynaa. okay, marka waxa weeyaan waa sawir fool xun, sawir fool xun. marka sawirkaa fool xun, ini sawir kastoo fool xun buu noqon karaa, ma aha mid khaasa. waxaa loo isticmaali karaa sawir kastoo fool xun ayaa loo isticmaali karaa an ugly picture. an uncle-na dee nin kastoo adeera ayaa loo isticmaali karaa. marka mid khaas ma aha oo micnaha definite ma aha. sidaa awgeed waxaynu isticmaalaynaa an oo ah wax la tirin karo. waxaynu kaloo isticmaali karnaa an waxaynu isticmaalaynaa kelmaddu haddii ay ka bilaabato maxaan ku dhahdaayey any vowel hadday ka bilaabato, for example haddii ay micnaha ka bilaabato u ay ka bilaabato oo u-da way ahaan loogu dhawaaqayo. مثلا university. okay, u-datan y baa loogu dhawaaq lahaa, yah baa laleeyahay. university baa laleeyahay. marka maadaama ay dhawaaqeeda uu waa yahay, dee odhan mayno an university ma odhan karno, waayo dhawaaqeeduba vowel ma aha. ya-dii baa inoo dhawaaqaysa, y baa inoo dhawaaqaysa. marka waxaynu leenahay a university student. baynu isticmaalaynaa maadaama ay consonant ahaan u dhawaaqayso, waxaynu odhanaynaa a university student, arday jaamacadeed ama arday jaamacad dhigta baynu odhanaynaa. arday jaamacadeed ama arday jaamacad, university student ayaynu odhanaynaa. marka sababtaynu isticmaalaynaa eedaasina university student, eedaas waxaynu isticmaalaynaa waxaa weeye sababtoo ah u-datan ayaa sidii waydii u dhawaaqaysa. maadaama ay u-daas sidii waydii u dhawaaqayso, baynu iska isticmaalaynaa. okay, the next part of our example, and in some words that begin with h and the h is not pronounced, instead the word begins with the vowel sound and an is used. tusaalahaynu soo qaadanay waxaa ka mid ah haddii h ay kelmaddu ka bilaabanayso oo h-ta aan loogu dhawaaqayn sidii shibane, waxaa la odhanayaa maalan hour. hourta waxaa lagu dhawaaqayaa intaa, laakiin h-ta tani waxay noqonaysaa silent h ayay noqonaysaa. marka waxaa la odhanayaa an hour. marka maadaama intan lagu dhawaaqayan tanba lagu dhawaaqayn, oo it's like inaynu tan meesha ka saaro, waxaynu isticmaalaynaa an baynu isticmaalaynaa. honor. okay, kelmadda tan waxaa lagu dhawaaqayaa honor. let us say laba siyood baa loo dhigaa.
honor u-na waa lagu daraa honorna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa honor oo micnaha sida tan ah right this is the maxaan ku dhahay American system waxaan leeyahay this is the American system and this is the British system marka kelmadda tan waxaa la odhanayaa an honor waayo ooda tan ayaa lagu dhawaaqaya tanna sidoo kale dee ooda lagu dhawaayo kelmaddu way isku midkii uun markaa maadaama ooda lagu dhawaaqayan h-ta tani ay tahay silent h oo aynan weligeen maqlaynba iyadoo lagu dhawaaqayo an ayaynu gelinaynaa marka waxaynu odhanaynaa an hour ama waxaynu odhanaynaa an honor ma aragtaa markaa sababta awgeed ayay waxay u yihiin muxuu ahaytay silent consonant in the most words that begins with h the h is pronounced h-ta inta badan waa lagu dhawaaqa haddii kelmaduhu ay ka bilowdeen h inta badan waa lagu dhawaaqaa dhowr kelmadood mooyaane markaa sidaa awgeed waxaynu isticmaalnaa e baynu isticmaalnaa haddii h-ta lagu dhawaaqayo haddii aan lagu dhawaaqayna waxaynu isticmaalnaa an ayaynu isticmaalaynaa tusaale markaan idiin soo qaado halka kan waxaynu wada samaynaynaa layliga halkan ku yaala oo ah layli fudud ayaynu wada isticmaalaynaa dabadeedna arday walba wuxuu isku dayayaa inta aanu layliga aanan anigu ka jawaabin inuu isagu ka jawaabo number 1 waxaynu odhanaynaa midka su-aasha ugu horeysa waxa weeye Bob is dash apple number 1 Bob is eating dash apple okay number 1 marka adigu waxaad isku daydaa inta aanan anigu ka shaqayn inaad adigu meelaha buuxisid adiga oo casharka la socda qalinka iyo buugana isku dulhaya kana shaqaynaya intaad sharaxa dhageysanaysid Tom is eating tan ku xigta waxa weeye Tom is eating muxuu cunayaa isna banana Tom is eating halkaa waxbaa ka maqan okay and tan saddexaad waxay noqonaysaa Alice works in dash number 3 waxay noqonaysaa Alice works in office okay alka kanna and let's say banana waayo it's the middle of the sentence so we cannot use capital letters number 4 example ka afraad waxa weeye I have dash idea number 4 waxa weeye I have dash idea number 5 waxa weeye I have good idea number 6 waxa weeye Sue is talking to dash man Sue is talking to dash man number 8 waxa weeye I need to see dash doctor I need to see dash doctor number 9 waxa weeye Cuba is dash island Cuba is dash island and the number 10 is Mary is reading dash article
in the newspaper. Let's say Mary is reading article in the newspaper. Newspaper waa halkan waxa weeyaan news and let's say paper. Newspaper. Okay. So let's come back to do the exercises together, because here we have given you a blank spaces which you have to fill by yourself, trying if you understand what we have been explaining in our lesson today when we were talking about articles. And let us say Bob is eating, halkani waxa weeyaan an ba ay ka bilaabataa marka an apple baynu odhanaynaa. Tom is eating waayo tani waa shibane, waa consonant, marka maadaama consonantka lagu dhawaaqayo oo bida lagu dhawaaqayo waxaynu odhanaynaa Tom is eating a banana. Elias works in an office baynu odhanaynaa waayo o ayaa lagu dhawaaqaya oo faawala. I baa lagu dhawaaqayaa, an idea ayay noqonaysaa. I have good baa lagu dhawaaqaya oo iyadu sifa ah. Then baa lagu dhawaaqaya oo jiidasa lagu dhawaaqaya, marka I have a good idea ayay noqonaysaa. Sue is talking to. Taasi waa shibane, marka maadaama shibana lagu dhawaaqayo shibana baynu qaadanaynaa. Marka maxaynu odhanaa Sue is talking to a man. Tan ku xigta waxaynu odhanaa number 8, I need to see. D baa lagu dhawaaqaya, marka waxaynu odhanaa a doctor. Okay, Cuba is I baa lagu dhawaaqaya waayo waa island.